السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أصحابته هل كان يقدر ونسا meel walba waa joogtaan isoo walba muuqaalkaygu uu markaa idiin soo gaarayba muuqaalkan waxaan rabaa dhowr qodob oo kala duwan inaan ku fiiriyo ahna kuwii hadda ugu dambeeyay ee bariga dhexe ee qodobka ugu horeeya oo aan rabo muuqaalkan inaan ku dul istaago ayaa wuxuu noqonayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo halis weyn dhexda ka taagan iyo waliba dekadii Fujairah oo wali gubanaysa saacado badan kadib dekadaas wali waa la dabilaaya waxaan sidoo kale idiin hayaa xog la yaab leh oo la xiriirta way dekadan loo beegsada waxay kaga duwan tahay dekadaha kale ee Imaaraadka ee markaasi ay leeyihiin xog qarsoon oo arrintan ku saabsan oo saacadii hadda la soo dhaafay faham laga qaatay sababta loo weeraray ayadaana waynu fiirin doonaa ee qodobka labaad waxaan rabaa inaan bal oga hadlo dhaqdhaqaaq xooggan oo Mareykanku uu ka wado bariga dhexe waliba dhanka cirka iyo kooxda Trump oo soo dusiyay xog muhiim ah oo markaasi lala wadaagay wakaalada Fox News ahna wakaalad u janjeerta dhanka kooxda Trump ayaa waxay sheegtay qorshaha dawladda Mareykanku ay diyaarinayso oo ah dagaal ka dhan ah Jamhuuriyadda Iran bal qodobkaana waynu fiirin doonaa iyo waliba dhaqdhaqaaqa xooggan ee Mareykanku uu ka wado bariga dhexe saacadii hadda la soo dhaafay ugu dambeyn waxaan fiirin rabaa oo arba qodobka ugu dambeeya ee muuqaalka iyaga aan oga hadlo waa xog sirdoon oo dhanka dawladda Mareykanka ka imaanaysa ayaa banaanka la keenay waxaan la isweydiinayaa maxaa xogtan ku soo beegay xilli ay dawladda Mareykanku qarka u saaran tahay inay weerar ku qaato Jamhuuriyadda Iran maxaa isku soo beegaya iyo sida ay xiriirka u leeyihiin bal qaybta ugu dambeeya ee muuqaalka iyaga ayaynu ku qaaban dhigi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan isoo muuqaalkaygu uu markaa idiin soo gaarayba dadka Carabta ayaa wuxuu noqonayaa weerar qasaare xoog leh markaasi geystay ilaa haatan waxa la damin la yahay dabkii ka dhashay dekadaasi oo markaasi dhowr daroon oo kala duwan oo nooca isqarxi ah ay Iran gudaha u galisay dekada waxa la arkayaa in ayadoo xataa habeen ah ay wali dekadaasu ay gubanayso isla markaasna ilaa hadda la damin la yahay marka la fiiriyo muuqaaladii ugu dambeeyay ee ka soo baxayay dekadaas oo ah halka ugu tirada badan oo Imaaraadka ay shidaalka ay ka dhoofsadaan dekadan waxyaalaha ay dekadaha kale kaga duwan tahay waa dekada ugu tirada badan ee Imaaraadku ay ka dhoofiyaan ee dhanka shidaalka inkastoo dawladda Iran ay iska fogeysay in weerarkan ayagu ay fuliyeen haddana way iska cadahay cidda fulisay inay Iran tahay nidaamyada difaaca ee markaasi sheega weerarada dalka lagu soo qaadayo iyo satellite-yada iyo warbixinaha kala duwan ee public-ga ah ayaana xaqiijinaya in weerarkan cidda geysatay ay Jamhuuriyadda Iran ay tahay laakiin Iran arrintaasi way ka warwareegaysaa dawladaha khaliijka oo dhanna waxay Iran u soo jeedinayaan cambaar iyo waliba inay ku eedeeyaan inay geysatay fal aan loo baahnayn inkastoo cambaartu aysan hadda waxba bedelinin laakiin haddana cid walba way ka warqabtaa mana ahan arrin aad looga doodsan yahay in cidda weerarka geysatay ay Iran ay tahay laakiin Iran ayagu afkooda kaba qeeranayaan taa marka waa intaas haddaba maxaa sababaya ama maxaa sababay in dekada Fujairah ay Iran u noqoto bartilmaameed rasmi ah maxaa dekadan ka duwayo dekadaha kale maxaa dekadan in la weeraro oo waliba weerarka intaan la eg loo geysto maxay tahay waxa aan ogeyn meeshan ku jira ayaa bal in yar ku dul hakaraya arrintaanu ma ahan arrin aad iyo aad warbaahimuhu ay uga sheekeeyaan waana arrin la xiriirta juqraafiyadda halka ay dekadanu ay ku taalo waxaa la sheegayaa dekada Fujairah waa dekada kaliya oo Imaaraadku ay leeyihiin oo ka wareegan karta marinka Hormuz ama aan ku qasbanayn maraakiibta dekada ka soo shiracada inay maraan marinka Hormuz marka la fiiriyo halka ay ku taalo geographically dekada meesha ay ku taalo ayaa waxay tahay meel aan qasab ahayn inta xagga loo laabto marinka Hormuz la maro toos bay u bixi karayaan toos baana loo iman karayaa waxaana jiray dhaqdhaqaaq maalmihii hadda la soo dhaafay dekadan ka socday oo Iran ay ka yara indha qarsatay inay istaajiso ama weerar ay ku qaado oo la xiriiray maraakiib inta ka dhunta marinka Hormuz halkaan mara soona galayay markaysan marka Iran waxay dhibsatay ama Iran waxay doonaysaa in qaliijka aysan cidna ka bixin cidna aysan soo gelinin shidaal ayagu aysan ogeyn inuusan ka bixin bay doonayaan
sidaa daraadeed intii aan dekedaan la weerarin ka hor ayaa waxaa la weeraray markabkan aad arkaysaan ee weli asaguna gubanaya badweyntana dhex yaala isla markaasna dekedaan meel aan aad uga fogeyn markaasi joogay oo shidaal tiro badan dekedaan ka soo qaatay marka waxa loo weeraray waxay ahayd inuu markabkaani uusan dhageysanin awaamirtii dhanka Iran oo inta uu fujeera wixii shidaal uu ka qaadan la uu ka qaatay uu dacay inuu ka firayo waana sababtii marka loo weeraray kadibna waxa ku xigtay in dekada laftirkeedii la weeraray marka xogaa hadda soo baxay waxay leeyihiin waxay Iran diidan tahay in inta marinka laga wareego fujeera ay noqoto halka maxaa la yiraahdaa shidaalka laga dhaansado isla markaasna meel dacfarur ku noqota sharciga Iran ay marinkan oo dhan ay markaasi ay saareen marka Iran isbaarada ay dhigatay ama jidgooyada ay sameysay waa gacanka Bershiya oo dhan marinka kaliya ma Bershiya oo dhan cid maraysa malahan bay leeyihiin marka waa sababta loo weeraray isla markaasna isla dekadii iyo cid walba meesha imaan lahayd waxay noqdeen stack mana jirto markab hadda ku soo dhiiran kara inuu gacanka Bershiya uu soo maro cid walbana way kala cararta saacadii hadda la soo dhaafay ayaa waxa la arkayay inaysan wax maraakiib ah halkaan iimaanaynin cid ka baxaysana aysan jirin labadii dhinac ayaa lagu go'doonsan yahay kuwii gudaha gacanka Bershiya ku jirana waa go'doonsan yihiin ma bixi karaan kuwii banaanka joogay oo ka rajo qabay inay soo galaan oo shidaal ay qaadaana ayaguna banaankii ay ku go'doonsan yihiin ciidamada Mareykanka dib ay u carareen marka waa stack waa la taagan yahay cid walba amarkii Iran ayay si qasab ah markaasi ugu hogaansatay ayaa la oran karaya qodobka intaasaan ku dhaafaya qodobka labaad markii aynu fiirino dhaqdhaqaaq xoogan ayaa laga dareemayaa bariga dhexe wali markaynu ka hadlayno diyaaradaha cirka kuwa shidaalka qaada qaasatan ayaa la arkayaa in si weyn ay u wareegayaan waa diyaaradaha waaweyn ee Mareykanku ay leeyihiin sida hadda noocyada C-130 oo kale oo markaas shidaalka qaada ayaa waxaa la arkayaa inay shaqo weyn ay ka wadaan aagaga marinka Hormuz dowladaha qaliijka iyo dhankan kale ee Israel iyo Jordan si xoog ah ay u mashquulsan yihiin ayaa la leeyahay marka la fiiriyo nidaamyada lagu taraagarayo diyaaradaha ee public ah ayaa waxaynu arkaynaa in hadda dhankan Israel iyo Jordan ayaa la sheegay in ilaa 9 diyaaradood ay mashquul yihiin oo hore iyo gadaal ay u socdaan marna Israel ay imaanayaan marna dhankan Jordan ay imaanayaan oo la arkay inay shaqo xoog leh ay markaasi ay wadaan dhanka kale marka la fiiriyo marinka Hormuz ayaduna saas oo kale waxa la arkayaa diyaarado aad mashquul u ah oo iska daba laabanaya oo ayaguna ilaa 9 ah dhankana 9 ba ka shaqeynaysa dhankana 9 ba ka shaqeynaysa marka ilaa 20 diyaaradood ayaa saacadii hadda la soo dhaafay si xawli ah isaga daba laabanaya dhankan iyo marinka Hormuz iyo dhanka kale ee Israel iyo waliba Jordan diyaaradahanu ilaa iyo dhanka qaliijka xataa way tagayaan waliba sida Imaaraadka iyo Sacuudiga marka la fiiriyo macluumaadka public ah ee markaasi laga helayo marka waxa la oran karayaa waxa socda dhaqdhaqaaq saacadii hadda la soo dhaafay ka awood badan midkii socday habeenadii hore ee la soo dhaafay midkaan hadda waa xawli waxaan la saadaalinayaa arintaas inay tahay diyaar garowgii u dambeeyay dowladda Mareykanka ee diyaar garoobaysay iyo waliba colaad hor leh oo ay rabto Mareykanku inay ku qaadaan jamhuuriyadda Iran sida loo fasirayo ayaynu ka hadlaynaa taa marka waa dhankaasi dhanka kale markii la fiiriyo isla qodobkaani wakaaladda caanka ah ee Fox News la yiraahdo ahna mid ku hadasha afka kooxda Trump ayaa waxay sheegtay xog xasaasi ah saacadii hadda la soo dhaafay waxay wakaaladdan way sheegaysaa in Mareykanku uu qarka u saaran yahay in Iran uu ku qaado weerar culus mar kale ay wakaaladdan way sheegaysaa wakaaladdan oo la hadashay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen in Mareykanku qarka u saaran yihiin inay dagaal ku qaadaan jamhuuriyadda Iran marka la fiiriyo xaaladdu siday ahayd 24 saac la soo dhaafay marka hadalkan macnihiisu waxa weeye 24 saac la soo dhaafay Mareykanku aad u baysan qorsheynaynin dagaal ay leeyihiin laakiin hadda meesha la marayo marka la fiiriyo Mareykanku qarka ay u saaran yihiin inay Iran ay weeraraan ayuu leeyahay mid kamid ah saraakiisha la hadlay Fox News oo maxaa sababaya in Mareykanku qarka u fuulaan isla xogtan ayay ku jirtaa wuxuu sargaalkan uu leeyahay marka la fiiriyo weerarka Iran ay ku qaaday maraakiibta Mareykanka ee badda taagan iyo midka ay ku qaaday dowladda Imaaraadka Carabta laakiin xasuusnaada Trump iyo dowladda Mareykanku way beenaysay in la beegsaday maraakiibta Mareykanka way beenayeen
wali markii la fiiriyo taliska dhexe ee dawladda Mareykanka oo muuqaalka iyaga hore aynu ku fiirino waxay dhaheen waa been warkaasi laakiin si hoose ay isla saraakiisha Mareykanku focus ugu sheegayaan inay Iran ay beegsatay maxaa la yiraahdaa maraakiibta Mareykanka waana sababta xogtaani ay concrete ay u tahay muuqaalka hore waxaan idinku sheegay wararka ala sheegayo xilliyada colaadu dhinac walba ha ahaadaane mararka qaarkood waxba ka soo laabta hada hadalka Iran ay leedahay anaga ma aan weerin waxa la yiraahdaa Imaaraadka waa hadal been ayaga weeraray cid walba way ogtahay sidoo kale Mareykanka hadalkan ay sheegayaan naftirkiisu waa hadal asaguna kaas oo kale u muuqda oo xilli coladeed baa lagu jiraa hadalada la leeyahayna waxa laga fiirinayaa ajandayaal siyaasadeed marka Focus News xogta ay shaacinayso oo ay ka soo xiganayso satellite-ka macluumaadka laga helayo ee diyaaradaha shidaalka qaada sida ay u wareegayaan labadooda markii la isku daro ayaa wuxuu sii xoojinayaa cabsida laga qabo in dawladda Mareykanku ay dagaal ku qaadi doonto jamhuuriyadda Iran saacadaha dafooda nagu soo haya waa xogta banaanka taalo wax ma isbedeli karaan wax isbedeli karaan dagaalkuna marar badan buu isbedelaa laakiin hadda xogta miiska saaran oo ugu macquulsan waa xogta qodobka inta san kale qodobka ugu dambeeya markaan fiiriyo oo waliba aan aad ugu dulhakanin qodobkan waxa soo baxay report sirdoon oo ka imaanaya dhanka Mareykanka wuxuu reportkan uu sheegayaa in uraniumkii ama nuclearkii dawladda Iran aan waxba la gaarsiinin marka la fiiriyo weerarada isdaba joogaha ee dawladda Mareykanku ay ku qaaday dalkaas Iran muddooyinka hadda la soo dhaafay hadduu yahay kii hore iyo hadduu yahay kii hadda ugu dambeeyay waxa la uraniumkii Iran waxba lama gaarsiinin nuclearka Iran waa sidiisii wali qajaf yar lama gaarsiinin inta kaliya marka la akhriyo ama xogta sirdoon ee xilligan soo baxaysa waxa qof walba oo wax garanaya uu isweydiinaya waxa xogtan ku soo beegay xilli Mareykanka leeyahay Iran bay weerarayaan waxa isku soo beegay arrintan waxay ka dhigan tahay marmarsiyo cusub oo la doonayo in loo sameeyo duulaan lagu qaadayo jamhuuriyadda Iran waxa rabaa in marmarsiyo looga dhigo you know what weeraradii hore Iran lagu qaaday nuclearkoodii waxa la gaarsiin marka hadda midka waxa la doonayaa in la burburiyo oo gantaalo culus baa la isticmaalayaa qalab casri ah la isticmaalayaa maalmiyada la soo dhaafay dawladda Mareykanka iyo Trump waxay iibinayeen in Mareykanku ay gantaalo kuwii hore ka culus ay hadda la soo baxayaan ama ay ka soo saareen warshadaha ay gantaalada ku sameeyaan marka cabsida dagaalka ee la qabo iyo xogtan marka la isku fiiriyo waxaad is leedahay marmarsiyo cusub oo duulaanka cusub ee Iran lagu qaadayo mid ka mid ah qodobada uu Trump rabo inuu shacabkiisa iyo reer Mareykan iyo kooxda maaga iyo warbaahimada dhankiisa u janjeera waxyaalaha la doonayo in lagu kiciyo dagaalkan oo lagu sabood gareeyo waxaba qodobkan lagu dareemad isleedahay waayo xilliga ay ku soo aaday ayaa waxay tahay xilli runtii xasaasi ah xilli la leeyahay qarka loo saaran yahay in colaad lagu qaado Iran xilli la arkayo in diyaaradihii shidaalka qaadayay ay busy ku yihiin inay iska daba laabtaan oo la arkayo inay buuxinayaan diyaaradihii dagaalka ee Mareykanku u lahaa kuwii Israa'iil yaalay iyo kuwii kale ee badweynta ee markaasi maraakiibta dul saarnaba la buuxinaya waana sababta diyaaradahan isaga daba laabanayaan Imaaraad bala tagay shal baa laga soo qaadaya maraakiibta loo tagay oo lagu shubay haddana way laabanayaan way soo qaadayaan iska daba laabadka noocaas qaabkaas ayay u badan tahay inay tahay wax meesha ka soconaya waa marka la akhriyo marka informationkaasi marka xaaladdu waa sida cabsida baa jirta wararka ugu dambeeyna kuwadan islaahay waa kuwa ugu macquulsan waa kuwa bal muuqaaladeena dambe waxaynu ku fiirin doonaa bal waxyaalaha dambe ee soo kordha iyo sida ay xaaladdu ay markaasi ay noqoto. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.